nin ciraaqi ah oo 103 jir ah ayaa guursaday haweeney 37 jir ah oo lagu tilmaamay inay tahay mid qurux badan waana markii saddexaad ee uu guursado noloshiisa. arrintan ayaa baraha bulshada ka noqotay mid laga hadalhayo waxaana lagu tilmaamay dhacdo dhif iyo naadir ah in ruux kor u dhaafay 100 sano uu guursado xilligan. xafladda meherka arooska Khalifa al-Mansouri oo ka qabsoontay degmada Sumir ee gobolka Diiwaaniya ee dalka Ciraaq ayaa waxay ku dhacday jawi farxadeed waxaana kasoo qayb galay caruur uu dhalay kuwa uu awow u yahay iyo kuwii ay si dhaleen sida laga soo xigtay Cabdisalaam al-Mansouri oo ah wiilka uu dhalay arooska. gurkani waa kii saddexaad ee aabihiis oo dhashay 1919 waxa uu guursaday xaaskiisii ugu horeysay muddo 34 sano hadda laga joogo. haweeneydaas oo 14 sano ka yareed ahaan xilligii uu guursanayay waxay u dhashay 6 wiil iyo 4 gabdhood oo kan ugu weyn uu dhashay 1950 kan ugu yarna waxay u dhashay 1980. wuxuu intaa ku daray in hooyadii oo ahayd xaaskii ugu horeysay ee aabihii ay geeriyootay sanadkii 1999 wuxuuna aabihii uu guursaday xaas kale oo 24 jir ahayd waxayna u dhashay 2 wiil iyo 1 gabar oo midda ugu weyni uu dhashay sanadkii 2002. wuxuuna xusay inay ka mid ahaayeen sababta uu aabihii u go'aansaday inuu guursado xilligan ay sabab u tahay khilaaf isaga iyo xaaskiisii labaad soo kala dhexgalay taasoo iyana iska aaday guriga reerkooda oo ku yaal gobolka Diiqaar oo dhaca koonfurta Ciraaq halkaas oo ay ku sugan tahay dhowr bilood. al-Mansouri waxa uu intaa raaciyay in aabihii uu ka codsaday inuu xaas kale u raadiyo taasoo ah sida ay wax u dhaceen. wuxuuna tilmaamay in doorashadu ay ku dhacday gabar qurux badan oo dhalatay 1985 taasoo ka dhigan inay da'deedu tahay 37 sano jir. sheekada ku saabsan guurka Khalifa al-Mansouri oo ku dhaafay hal qarni ayaa si weyn u qabsaday baraha bulshada ee Ciraaq. falcelinta Ciraaqiyiinta ayaa ku kala duwanaa kuwa ayaa u rajeeyay farxad lamanaha cusub halka qaar kalena ay dhaleeceeyeen odayga maadaama sida ay tilmaameen aysan wanaagsanayn inuu guursado gabar dhalinyaro oo 30 sano jir ah kaas oo da ahaan ka weyn 66 sano. guurka noocan oo kale ah ayaa dhif ku ah dalalka Carabta waxaana ugu dambeeyay sanadkii 2020 xilligaas oo uu guursaday Arif Atiya al-Jadaaya oo u dhashay dalka Urdun isaga oo 103 sano jir ah.